haddii geed aad beerato muddana aad waraabiso waxaa hubanti ah in aad miro macaan ka hesho ama ugu yaran harharac leh aad ka hesho aabba Soomaaliyeed oo gabadhiisa ku soo koriyay nolol aad u adag sida isaguba uu sheegay ayaa gabadha waxay samaysay abaalgud hordhac ah oo ay sheegtay in aabbaheed ay u hibaysay madraso lagu barto quraanka kariimka oo waalidkeed u noqdo saciid adduun iyo aakhiraba aabbaha gabadhaasi ayaa markii munaasabada lagu shaacinayay waxa uu qeyro isla hayn waayo oo ilmihiini ay ishiisa ka soo dareertay wariyahayaga wararka Kenya Cabdiraxmaan Khaliif ayaa warbixintan soo jeedinaya xafladda ay soo qaban qaabisay gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Miski Mahad ayaa si rasmi ah loogu daafuray dugsi cusub oo ku yaalo xaafadda Yasli ee magaalada Nairobi. xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada sida dhalinyarada, macallimiin iyo waliba waalidiin kuwaas oo doonayay inay ka faa'iideystaan dugsigan cusub. ugu horeyn xafladan waxaa lagu furay Quraanka Kariimka iyo nashiidooyin shacabka soo jiitay. ومهما شكرت فصد النعم إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم. waxgaradkii xafladan ka hadlay ayaa ka hadlay muhiimadda uu Quraanka Kariimka leeyahay iyo waliba muhiimadda haweenka muslimiinta ay ku leeyihiin bulshada. Khiinta culimada ahaayeen siday ka sheegeen markaan u soo laabano ama aan fiirino culimada baxuusta ay ka sameysay ama researchka ay ka sameysay gabadha muslimadda ah doorka ay ku leedahay mujtamaca iyadoo markaasi nabiga sallallahu alayhi wasallam waqtigii uu jiray gabdhaha la duugi jiray ama gabdhaha la iska amaahan jiray oo la dhihi jiray war gabadhaada maanta isii ama gabadhaada gabadhu aysan qiimo ka lahayn laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisana uu ku karaameeyay nabiga sallallahu alayhi wasallamna uu karaameeyay kale haddaan ka hadalno xagga dacwada iyo cilmiga faafintiisa ummuna Caaisha allaha ka raali noqdee waxay culimadu dhaheen haddii afar loo qaybiyo meel ka mid ah gaarsiinta diinta waxaa la dhihi karaa Caaisha ayaa iska lahayd allah ka raali noqdee. Miski Mahad ayaa sheegtay in dugsigan ay u sadaqaysay waalidkeeda waxayna hadiyad gudoonsiisay aabaheed oo goobta ku sugnaa. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh mid ka mid ah waalidiinteeda ayaa ila jooga. Aaba macaan waxaan rabaa inaan gabay ku tariyo. gabaygan wuxuu ku bilaabanayaa sida tan maxay dunida xal adag xujo iyo dib leedahay maxay xaajo daba dheer dadku badi ku xigdaa xanuunada dhamaantood waxaa laga xoreeyaa qofkii aabo xeel dheer oo laabtu xalan tahay oo xiska daweyn kara dadka laga soo xulay waqtigan xab iyo biyo ahaa xub yaro maran oo haddii la xoorana quraanyadu xagafeen aabihii ximbaaray ixirmeey keligay asan xoolo badan qabin asan xoog weyneen dartay galay xamaaliga xiligan hurdaayana shaqadu xarbaayo aabihii macaan maadaama uu ila joogo ina gudoonsiyo shahaada sharaf marnaba liidaada ha u ogolaanin ina murugooto aan igu gudoon aad baan u faraxsanahay dareenkayguna uu kacsan yahay oo wax badan ma sheegi karo laakiin waxa ku kalifay gabadhan inay saan samayso yaan rabaa inaan wax idin sheego ma aanan ogeyn xaqiiqatan arrintan laakiin miski waxaan ku soo koriyay oo ilaa aan ku soo koriyay xaqiiqatan aad u dhib badan miski waxaa dhashay gabadh aan yaraan isku guursanay oo aad aan u jeclaa laakiin calafka ayaana kala geeyey ka bacdi waad garan kartaan gabadhan hooyadeed la joogin ilmahan hooyadeed la joogin asagoo xanuun u leeyahay haddana gabadhuhu way ka dhib badan yihiin dugsigan oo lagu magacaabo Nuura Al-Dahabi ayaa waxaa Quraanka lagu bari doonaa ardayda danyarta ah. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Isli, Nairobi.